adeegyadooda ay u dhaamaan sida ay haatan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed ee isticmaala adeegyada diyaaradahaasi qaarkood ayaa waxay marar fara badan ka cawdaan adeegga diyaaradahaasi warbixintanna waxa inoo hayaa wariyaha kale ee Universal TV uga soo warrama magaalada Muqdisho Cabdinuur Muude Al-Cadaala iyadoo tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya horaantii sanadkii 1991 aanay muddo aad u dheer dalkani ka jirin adeegyo badan oo kuwa bulshada ah ayaa sanadihii dhexe intii lagu jiray burburka waxa soo shaabaxay shirkado ganacsi oo Soomaali ah kuwaasoo in badan isku dayay daboolitaanka adeegyo ay horay Soomaaliya uga qaban jireen hay'adihii dawladda dhexe haddaba sida laga warhayo adeegga dhinaca duulimaadka ah ayaa isagu waxa uu ka mid ahaa waxyaabaha ay bulshadu baahida weyn u qabtay taasoo keentay inay abuurmaan shirkado diyaaradeed oo isaga kala goosha gobollada dalka iyo qaar ka mid ah dalalka dunida oo ay Soomaalidu dano badan kaga xirnaayeen way dadaaleen run ahaantii shirkadahan Soomaaliyeed ee intay isu tageen ku dadaalay sidii shacabka Soomaaliyeed uga saari lahaayeen baahida ay u qabaan helitaanka gaadiidka hawada hase ahaatee waxaa iminka la soo gaaray xilligii dib loo casriyeyn lahaa qalabka iyo gaadiidka ay dayuuraduhu ka midka yihiin ee ay isticmaalaan shirkadaha iminka ka shaqeeya howlaha duulimaadka sidaasina waxaa jiray wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangeli oo maanta kula hadlayay saxaafadda gudaha garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho isagoo intaasina ku sii daray in dowladdu ay dhiirigelinayso howlaha shirkadaha iyo garoonkaba waxay tusaysaa ruuxaantii shirkaduhu in ay horumar sameynayaan doonayaan adeeg wanaagsan inay u sameeyaan shacbiga waana mid ruuxaantii dhiirigelin leh annaguna xukuumad ahaan waan dhiirigelinaynaa saa u maadeeyo idiin sheegay hawl weyn oo xagga amniga hagaajinta amniga ee gegida iyo guud ahaan casriyeynta gegidaba waa la wadaa mid ay dawladdu wadana waa jiraan mid aanu ka kaashanayno dawlado aanu saaxiib nahayna waa jiraan insha Allah waxaanu rajaynaynaa inuu gegida caalamiga ah ee Muqdisho ay noqoto gego la xeera gegooyinka caalamka ee adduunka sidoo kale garoonka dayuuradaha ee magaalada Muqdisho oo isagu ka mid ah goobaha aan looga maarmin marka laga hadlayo gaadiidka hawada ayaa hadda u muuqanaya mid si wanaagsan u shaqaynaya markaad eegto dhinacyada amniga iyo bidaanta araggaba si wanaagsanna kuu soo jiidanaya inkastoo la ogyahay in sanado badan oo ka mid ahaa xilligii burburka dalka uu ahaa garoonkani mid aan shaqaynaynin oo howlgab ahaa ayaa iminka waxaa sharaxaya garoonka iyo waxyaabaha ay ka qabteen agaasimaha guud ee garoonka magaalada Muqdisho Maxamuud Sheekh Cali sidaad ka warqabtaan aeroboortkan 2 sano iyo 2 bilood ka hor markii aan imaanaynay 2 qolob yar halkaa ku taala lagu shaqeynay maantana waa arkaysaan baaxidiisa iyo xafiisyadiisa iyo qalabkiisa leeyahay intaas oo shaqo aeroboortka uu socday oo muxuu ahaa hawshiisa la waday shirkadaha dayuuradahana ayaguna qaybtooda ayay ka qaadanayeen oo runtii qayb aad u wanaagsan ka qaateen maalinta ayada ah 3 dayuuradood ama 3 shirkadood ay jiray Afrika Daalo iyo Juba oo Afrika maana labada kale ay ku shaqeynayaan diyaaradii hore oo ahaa Illusion 18 maanta waxa aeroboortka ka howlgalay 6 shirkadood oo joogto ah oo 4 kamid ay tahay passenger iyo cargo isku jira labana ay cargo Soomaaliya taasoo waxay muujinaysaa sida ay shirkadaha ganacsigu u sii horumarinayaan howlahooda.